habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin waxa goor dhaweed looga dhawaaqay magaalada Garowe xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland oo toddobaadka dambe u dooran doona madaxweynaha ka talin doona gobolkaasi 5 sano ee soo socota waxaanu eegi doonaa ahmiyadda doorashada Puntland ay u leedahay gobolkaasi iyo guud ahaan Soomaaliya qodobada kale ee caawana waxa kamid ah dib u dhacyo dhaadheer mashiinadii lagu codeynayay oo halaabay ayaa saameeyay doorashooyinkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo laakiin ma keeni doonta xil isku wareejintii ugu horeysay ee nabada oo ka dhacda waddankaasi saacadda caanka ah ee London muddo sanad ka badnayd ayay aamusnayd oo dayactir ku socday waxa la filayaa in caawa sanadkan cusub laga dhawaajiyo munaasabadda sanadka cusub awgeed faqidada ciyaaraha ee caawana waxaanu idinkugu haynaa Liverpool oo ku garaacday 5-1 Arsenal iyo ciyaarihii ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Garowe goor dhaweyd guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka ee Puntland ayaa ku dhawaaqay 66 xubnood ee baarlamaanka cusub ee Puntland waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo raggaasi ama dadkaasi xubnaha cusub ay dooran doonaan madaxweynaha cusub ee Puntland oo doorashadu ay dhici doonto maalinta 8 ee bisha January oo lagu wado in halkaasi ay ka dhacdo dhinaca kale waxa jirta in magaalada Garowe maanta uu ka dhacay banaanbax ay sameeyeen kooxo dhalinyaro ah oo taageersan go'aankii toddobaadkan ay gaareen guddiga ammaanka doorashada Puntland oo sheegaya in dawladda federaalku ay faragelin ku hayso maamulkaasi isla markaana xubno ka socda Muqdisho aanay iman karin gobolkaasi Puntland doorashadan maamulka Puntland waxa uu sharaxan ilaa 28 musharax oo doonaya in ay u tartamaan xilka madaxweynaha maamul goboleedka haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa laga filan karaa doorashadan magaalada Garowe waxa qadka si toos ah ugu jira Guleed Saalax Barre oo agaasimaha macadka daraasaadka ee Sidra Guleed waad mahadsan tahay haddaan su'aasha ugu horeyso ku weydiiyo maxaa la isleeyahay ahmiyada ay leedahay doorashadan Puntland فرحان وما سنتها ولاal sida la socotid Puntland waxay hada jirsatay 20 sano ilaa 98 ayay ahayd maamul runtii dadka deegaanka aad iyo aad ugu soo intii hadda ku jiray burburka dawladda Soomaaliya markii burburka kadib dadka deegaanka waxay sameysteen maamulkan 20 sano runtii waxa jiray nidaam dawladeed oo u shaqeeyay waxaan isleeyahay doorashadani waxay ugu duwanaanaysaa doorashooyinkii kale 20 sano kadib dadka reer Puntland waxaad moodaa dareen xoog leh ayaa jira oo ay tabayaan in 20 sano meeshii la rabay inaan wali la gaarin xiiso gooni ayay leedahay filashadu aad ayay u sareysaa waxa aad iyo aad loo hadalhayaa isbedelkani inuu noqdo oo dadku aad ugu taamayaan mid runtii saameyn badan yeesha oo dhinacyada nolosha bulshada deegaanka degan oo saameyn ku yeesha oo ka turjuma marka qasabada uu maamulku gaaray Guleed hadaan ka dhax galo waxa tiri 20 sano kadib dadku waxay aad u fiirinayaan isbedelada la filan karo maxaa kamid ah leedahay in waxa jirta in ballanqaadii hore loo sameyn jiray oo ah in doorashooyin oo hal qof hal cod ay ka dhacaan gobolka waxaan hadda isbedelkan ku dhacay baarlamaanka laftigiisu isbedel aad u ballaaran weeye boqolkiiba waxaad ilaa 75 golaha dadka soo galay hadda waa dad cusub weeye oo dhalinyaro u badan aqoon-yahana inkastoo kaalintii dumarka runtii aad iyo aad ugu hooseyso oo halka barkaliya ku jirto caqabadaha ka jira deegaanka oo runtii waliba hadda muddooyin u dhameeyay soo tareeyay waa caqabad aad u ballaaran oo kulligood u wada baahan isbedel dhab inuu ka dhaco haday ahaan lahayd dhinaca amniga iyo runtii xoogaa ay culaysa ka jireen gaar ahaan gobolka bari iyo magaalada Boosaaso dhinaca dhaqaalaha oo runtii uu ka jiro sicir barar xoog leh iyo yani oo saameeyay dhaqaalihii dadka deegaankan oo dhan yani tayada hay'adaha dawladda oo runtii aad iyo aad yani loogu jeedo inay aad hoos ugu dhaceen dhinaca musuqmaasuq laftigeedu baahay oo hay'adaha dawladda la degay
bixin la'aan mushaaharaadkii iyo xuquuqdii ciidamada iyo shaqaalihii waxaasoo dhan runtii isbiirsadeen waxay abuureen jawi qanacsanaan la'aana oo dadku ay aad iyo aad ugu hanwen yihiin inay helaan oo ay xoog mataqaana ay wafilayaan waliba xubnaha sanadada laakiin xubnaha hadda waxaad tiri 75% dadkan waa dad cusub hadda ku soo biiray baarlamaanka 17 baa dadkii hore ka ah oo ku soo laabtay laakiin taas ay tahay hal qof oo dumar oo kaliya ku jira tiri maxaa dhibaatada in hal dumar ay soo gasho baarlamaankii 66 ah maxaa u sababa isleedahay farxaan xog ururin aanu sameynay 2017 markii dadweynaha aan weydiinay inay taageersan yihiin yani ka qaybta gabdhaha ee xagga siyaasadda runtii aad iyo aad bay dadweynuhu yani majoritigoodu ay u taageereen inay ku farxsanaan lahaayeen inay ka bukaan fiican laakiin waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn waxa weeye nidaamkan hadda waxa lagu soo xulayo oo nidaam ilaa 20 sano u dambeeyay la isticmaalay oo aan ahayn mid ka qaybgal guud siinaya dadweynuhu inay codkooda soo dootaan cidii marka ayaga matali lahayd taasaan isleeyahay caqabada ugu badan oo haysata gabdhaha inay tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay guuleed saalax barre oo agaasimaha macadka sidra ee fadhigiisu yahay magaalada Garowe oo si toos ah nooga warramay doorashooyinkaasi Puntland bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka ayaa sheegay inuu ku qancay in madaxweyne Trump ay ka go'an tahay inuu ciribtiro kooxda dawladda Islaamka isku magacawday ka hor intaan ciidamada Mareykanka gabi ahaanba laga saarin wadankaasi Suuriya xildhibaankan ayaa kamid ahaa xildhibaano xisbiga jamhuuriga ka tirsanaa oo hore u dhaleeceeyay go'aanka madaxweyne Trump inuu dib uga soo celiyo ciidanka halkaasi dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay xirtay muwaadin Mareykan ah oo lagu qabtay arrimo basaasnimo hay'adda nabad ilaalinta wadankaasi FSB ayaa sheegtay in Paul Whelan la xiray 28 bishan December iyadoo lagu eedeeyay inuu geystay arrimo basaasnimo Mareykanku wax jawaab kama bixin eedeymahaasi dalka Suudaan sicir bararka ayaa kor u sii kacay iyadoo lacagta wadankaasina qiimaheedu hoos u dhacay dalka waxa haysta dhibaatooyin xagga sarifka lacagaha qalaad rootigii oo ku yaraaday qiimaha baastada iyo shidaalka oo kor u kacay taasi oo keentay in magaalooyinka qaar banaanbaxyo ay ka dhacaan waxaana la sheegayaa in ciidamada booliiska la geeyay magaalada Khartoum halkaasi oo la sheegaya inay doonayaan inay ku hor banaanbaxaan qasriga madaxtooyada madaxweyne Umar al-Bashir tirinta codadka doorashadii madaxtinimo ee xadii ka dhacday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa wali socota iyadoo wax isdoomarin lagu eedeeyay dawladda wadankaasi oo la sheegayo in korjoogtada ka socotay kaniisadda Katoliga in kormeerayaasha loo diiday in ay galaan in ka badan 100 goobood oo codbixina ilaa 20% goobaha codbixinta xilli dambe ayay furmeen sidoo kale waxa la sheegay in goobaha codbixinta qaar kamid ah in laga bedelay meeshii ay ahaayeenba waxa kale oo la sheegay in korjoogtada loo handaday dadka qaarna waxa ay sheegayaan in loo diiday in ay tagaan goobaha codeynta codkooda ay dhiibtaan natiijada horudhaca ah lama filayo ilaa 6 bishan soo socotay ee January waxa maanta la jiray internetkii magaalooyinka waaweyn ee wadanka kooxda ololaha ee musharaxa mucaaradka Martin Fayulu waxay dawladda ku eedeeyeen amarka daminta internetka waxaana hadal ay soo saareen ay ku yiraahdeen iyagoo ka fogaanay waxay ku tilmaameen in ay arkaan guusha baaxadda weyn leh waxaana musharaxoodu uu gaaray oo ah wasiirka isgaarsiinta waxa uu sheegay in uusan war u hayn xaaladda wadankaasi in Congo waxa ku sugan ciidamada nabad ilaalin hadaba maxay tahay ahmiyadda ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan wadanka Congo howlgalka nabad sugidda qaramada midoobay ee ugu weyn dunida waxa uu ka jiraa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo in ka badan 15,500 oo isugu jira askar boolis iyo shaqaale kale ayaa ka howlgala DRC ciidamada nabad sugidda qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay la geeyay DRC sanadkii 2000 si ay u xoojiyaan xabad joojin u dhaxaysay dhinacyada is haystay ilaa iyo markaas waxa ay qayb ka ahaayeen hanaanka nabad ilaalinta dalka DRC hase yeeshee rabshaduhu weli way socdaan iyadoo qiimaha ku kacaya ciidamada nabad sugidda qaramada midoobay ee aad u korortay oo ay gaarayso sanadkii in ka badan 1 bilyan sidoo kale waxaa howlgalkan lagu waayay nolosha qaar ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta laakiin si loo fahmo dhibaatooyinka ka jira DRC waa in si gaar ah loogu kurgalaa dalka DRC ayaa hodan ku ah kheyraadka dabiiciga ah kuwaasoo lagu qiyaasay inay gaarayaan in ka badan $1 trilyan badi khilaafaadka jirana waxa ay ka dhacaan goobaha macdanta laga qoto
dowladda iyo mucaaradkuna waxay doonayaan in goobahaasi ay iyaga gacanta ku qabtaan. sidoo kale howlgallo macdan qodid ay wadaan shirkado ajnabi ah ayaa doonaya in ammaankooda la sugo. ciidamada UN-ka ayaa ka howlgala dalkan oo ay xiisadahani oo dhan ka taagan yihiin. u malayn maayo howlgalka nabad sugidda qaramada midoobay inuu dhowaan soo afjarmi doono 10 ilaa 15 sano ee soo socoto ayuu ku soo afjarmi doono ayaan isleeyahay maxaa yeelay waxaa jirta xasilooni darro dhanka bari. qaar badan dadka DRC ayaan ku faraxsanayn joogitaanka ciidamada nabad sugidda qaramada midoobay iyadoo amnigu uusan waxba iska bedelin inta uu howlgalku socday. dowladda ayaana ku celcelisay marar badan inay tahay in ciidamadu ay ka baxaan waddankan sanadka 2020. qaramada midoobay ayaana ku howlan sidii loo heli lahaa qorshe bixitaan taasoo lagu cadaadinayo inay soo afjaraan howlgalkooda, balse wali lama oga cawaaqibta ka dhalan doonta markay ciidamadani baxaan. mahadsanid Caaisha Afrax ee hay'adda warbixintaasi noo soo jeedinaysay. mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook, fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli karto muuqaallo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba, nagala soco bogayaga BBC Somali Twitter iyo waliba Instagram. wali waxaan soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aanu ku eegi doonaa faaqidaadii ciyaaraha ee toddobaadkan. caawana waxaan idinku haynaa Liverpool oo ku garaacday 5-1 kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo waliba ciyaarihii ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska. maxaa sababay guuldarrada Arsenal iyo waliba horyaalkan ma qaadi kartaa Liverpool? qodobadaasi ayaanu ku eegi doonaa qadar daqiiqada kadib. wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. waxaa goor dhaweyd looga dhawaaqay magaalada Garowe xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland oo toddobaadka dambe dooran doona madaxweynaha ka talin doona Puntland 5 sano ee soo socota. dib u dhacyo dhaadheer mashiinadii lagu codeynayay oo halaabay ayaa saameeyay doorashooyinkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, laakiin arrintaasi ma keeni doontaa xil isku wareejintii ugu horeysay ee nabadda ee ka dhacda waddankaasi. sanad ka hor ayaa sabab la xiriiray dayactir awgood waxaa hakin loo geliyay dhawaaqa saacadda caanka ah ee London ee la yiraahdo Big Ben. hase yeeshee waxaa la sheegayaa in dhalashada sanadkan cusub oo caawa aanu xiiso badan yeelan doonin marka la eego magaalada tan London haddii aanay saacadaasi dhawaaqeedii lagu yaqaanay samayn, balse waxaa la sheegayaa in baarlamaanka waddankan uu ku dhawaaqay in saacaddu munaasabadaasi darteed caawa ay dhawaaqi doonto. wariyaha BBC-da Tim Moffat ayaa u kuurgalay sida saqda dhexe caawa looga dhawaajin doono. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa noo faahfaahinaya. waa 399 tallaabo si loo koro halka ugu sarreysa dhismaha inta badan la qaldo magaciisa. dayactirka dhismaha Elizabeth oo ah halka ay ku taalla saacadda Big Ben ayaa hadda degdeg lagu kori karaa. Hi Adam, good to see you. Wow, this is an amazing spot, isn't it? It's a huge privilege, obviously, to be able to... arrintani waa sharaf aad u weyn in la qabto. derbiyada dhismahan bam ayaa waxyeeleeyay dagaalkii labaad ee adduunka. iminkana waa fursaddii ugu horreysay ee tin ilaa cirib la dayactiro oo shaqo hufan laga qabto. horraantii sanadkii hore ayay shaqadu bilaabantay, waxayna soconaysaa ilaa 2021. inta ka horraysa lama maqlayo dhawaaqyada lagu yaqaan. dalxiisayaal badan ayaa jira oo arrintan aad uga niyad jabay. waxay London u yimaadeen oo keliya inay arkaan dhismaha saacaddan.
ku dhowaad 160 sano waxa uu gacanka dhawaaqa sameeyey ka shaqaysiinayay saacadda. With the original clock. caqabadaha halkan ka jira ayaa ah in dib loo soo celiyo qalabkii hore ee saacadda. Haddaba siday suuragal ku tahay saacadda adduunka ugu caansan in munaasabada gaar ah ay dhawaaqdo? waxaan heer ka dhignay inay helaan dhammaan munaasabadaha qaranka sida xuska axadda iyo sannadka cusub. marka ugu horraysa saacaddan waxay shaqaynaysaa November. waa kombiyuutar ku xidhan GPS-ka. aaladdiinna dhismaha ayaa hesha signalka kadibna u sheegta in mashiinku shaqeeyo oo ka dhawaajisa gacanka saacadda. That's exactly what happened on Remembrance Sunday, and it works extremely well. waa dhawaaqa sanadka dhammaanaya iyo kan soo socda. dayactir kasta waxaa ka muhiimsan in saacadda aan la aamusin. saacada yar ayaa naga xiga bal markana Ismaaciil Saleebaan waa 15 jir waxa uu dheelaa xulka kubadda cagta ee qaranka ee Soomaaliya. waxa uu ku noolaa xeryo barakacayaal oo ku yaala Muqdisho 18 bishii 6 ee sanadkan ayaa Ismaaciil waxa uu nooga warramay noloshiisa kubadda cagta. ciyaaryahan Ismaaciil ayaa soo galaya akhlaaq ayaa ciyaari doonta Bruno ayaa ciyaari doona mid ka mid ah ciyaartooyda barakacayaasha ayaa soo galaya. Ismaaciil waxa baxay macallin tare aad oo faraxsanahay ciyaartooyda hadda aan ahay xulka qaranka lambarka koowaad inkastoo dhihinin ciyaartooyda kale laf dhabarta aad oo faraxsanahay aniga ciyaartooyda kale degan magaalada. kan Ismaaciil Soomaaliya Ismaaciil banaanki u dheelay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya booska 12aad ilaa ay booska 9aad u saftay kulmada in aan ku dheelaynay safarka aabaxnay idil. yaraanteeda aniga waxaa ku dhashay Shirkole waxaa ku soo koray meel lahayo 15 October waxaan soo degnay Digfeer ilaa iyo Digfeer ay soo guurnay asluubta degnay asluubta hadda inta ku sugnaay Sarkuus. biloon aniga horta waqti hore soo bilaabay ma dhahay laakiin dhabaana soo bilaabay waan ku faraxsanahay meesha hadda ka taaganahay. aniga subaxdii waa soo kaca 6 saac 7 saac aalmindada aad jirnay sida aalmindada aan ku soo qaadeynay marka aalmindada ka soo baxo galbihii waxaan soo aadi jiray xaafadeeda sida xaafadu imaado hool yar oo guriga ka dhimanaa dhameystiray habeenkii haddana bareefad labada aadi jiray. waxaan kaga qayb galay ciyaartooyda qaranka inaan noqdo ciyaartooyda xaafadda oo koobka qaxootiga la dheelaayo ayaan isku daray. sidaas awgeed waxaan noqday ciyaaryahanka ugu fiican ayaan meeshaas aan ku guuleystay. sidaas awgeed dadaal fara badan juhdi fara badan oo macallimiinteena ayna siiyeen halaan ku soo gaarnay aan xulka u baxan qaranka. isbedel aad iyo aad weyn aan ka dareemay inaan baxo xulka qaranka Soomaaliya. waxaan dad badan aan arkay taageeriye waan ku faraxsanahay. waxaan rajeynayaa ciyaartooyda qaranka Soomaaliya sida Maxamed Ismaaciil iyo ciyaartooydii aan nala tusay aragnay in ay camal ku deysano aan rajeynayaa. waa wax qoran oo alla agtiisa ka socda in xulka qaranka matalo. laakiin anaga dhiirigelin macallimiinteena ka helayna iyo wadannimo nagu jirta ayaan muujinaynay. sidaas awgeed aan dadkaas iga dhicinayn. Ismaaciil haddaan intaa kaga gudubno iminkana bal aynu eegno qaybta faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan ee caawiya caalamka. waxaa stuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Deystan oo arrimaha ciyaaraha ka faalooda. bal ciyaarihii dhacay toddobaadkan usbuucan ciyaaro aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay oo Brighton 1-0 waxay ugu adkaatay Everton ayay ugu adkaatay Fulham waxay 1-0 ugu adkaatay Huddersfield Town ayay ugu adkaatay Watford iyo Newcastle-na waxay ku kala tageen 1-1 Leicester oo ka soo adkaatay City iyo Chelsea gurigooda 1-0 ayaa Cardiff uga adkaatay. Liverpool waa la soconaa iyadana 5 gool inay uga adkaatay Arsenal iyo 1 oo ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay aad. Southampton City oo 2 ciyaar laga adkaaday 3-1 ayay uga soo adkaatay. Tottenham oo ayadana garoonkii Wembley 1 gool intay la hormartay 3 ay ka dhalisay. Wolves ayaa dhacay. Crystal Palace ayadana Chelsea ayaa 1-0 uga adkaatay. waan gartay marka ciyaarahaasi oo dhan ciyaarihii ugu xiisaha badnaa haddaanu eegno in kooxdan Liverpool 5
iyo hal bay kaga adkaatay Arsenal marka sababtu maxay ahayd waa la yaabay ugu weyn waxay ahayd waxaan la soconaa Liverpool inay weerar xoog leh ay qabto oo Mane iyo Salah iyo Firmino ay xoog ku socdaan gadaalna ay nimanka difaaca ay gadaal ka socdaan waxaan ognahay Arsenal inay difaac fiican aysan qabin inkastoo goolka ay la hormartay kadibna waa la soconaa in Firmino goolka koowaad uu dhali iska dhaaf kii labaad inuu ayaga dhinto dhex maray oo si fudud uga dhashtay weerar walba ay Liverpool ay soo qaadana waxa u malaysaa inuu gool u ekay laakiin Liverpool kadib markay gool dhalisay waxba laga dhali jiray laakiin sanadkan waxa u malaysaa inaysan arintaas aysan jirin oo Van Dijk iyo goolhayooda Alisson si u yimideen inay gadaashoodan ay adkaatay oo gool dhalintii aan laga dhalin ay labadaas u yihiin muhiim weyn ay gadaal Arsenal marka laga yaabo inay isbedel wax sameeyaan oo hadda tababarahoodii bal inuu dib u fakiro كل جول درده كل عدي وحي تسيسا أرسنال إنه دفاعين ويرول بول لجو قاضي وحي أكد إن جول لقى لنا أي أكد قيب توراتي أفر لقى دلي قيب دم وحاب دعك أفر كلا إن لقى دلي لكن ليفربول وحي أكد إنه سويسو عيار أي ستي العيار دونت أو حوجي حوج يكودي أي كياريس مانشستر سيتي هوس بيقول عليه هذا لكن كارنتي لبعض بيسوق الشيء أولنا إذا هو جان كهيسي ما لسه كلام مركلي هوريال كقاعد كرتا سيتي waxaa loo maleeyaa hadda Fernandinho ayaa ka maqnaay labada ciyaar oo laga adkaaday Fernandinho ciyaarta Southampton oo soo noqday City-na dadku waxay ku sameey jirtay gool badan ay ka dhalin jirtay oo quusi jirtay laakiin hadda waxaa u maleysaa in kastay saddex ku adkaatay Sterling laba fursad oo beerdareeyay Aguero laba beerdareeyay Silva Mahrez kubada badan ay cunaan in kastay saddex dhaliyaan laakiin 4 iyo 5 iyo gool badan ay ka dhali jireen kooxdan quusay ay muujin jireen difaacooduna waxa u maleysaa waxa u taga inay ka dhalanayso laakiin waxay ogtahay inay ka soo kabsan doonto City-na waxay rajadeeda ku xirnaa doontaa arbacada oo Etihad ay kula dheeli doonto Liverpool taasoo ciyaartoor ever ku dhex martay haddii City ay guul gaarto afar dhib ayaa laga horneed kulli 17 ciyaar dhiman Liverpool ma u maleynaayo inta ciyaar u dhiman inay wada badi doonto laakiin rajadaas haddaan si kooban u eegno Manchester United ayaduna saddex ciyaarood ay ciyaarto waxa leeyahay 12 gool bay dhalisay ما يونايتد واسبدشي مورينيو xilligu joogay xilli waxay kooxda ay difaac ku jirtay hadda waxa la isu bedeshay weerar ay noqotay Pogba waxa aragnaa 4 gool inuu dhali taasna waxa keentay dhaxda uu ka dheeli jiray laakiin Mourinho uma ogoleen inuu xariiqin 18 oo galo oo dhaqaaqiis uu xadadnaa laakiin hadda waa la fasaxay laba gool u dhalay ciyaartoore laba gool u dhalay Martial waa aragnaa soo dheelay Rashford gool u dhalay Lukaku oo wax dhali weysna gadaal uu ka yimid gool u dhalay kooxdu waxay noqotay koox hadda weerar ku socota laakiin ayagana waxaan ogaan doonaa ciyaarta ay la ciyaari doonaan Tottenham taas ayaa la ogaan doonaa in Man United kooxda lixda ku jiro inay kaalinta afraad xoogsatay in kale hadda kooxa yar ay la ciyaaraysaa laakiin awoodeeda waxaan ogaan doonaa in kasta ay ka waran suuqi kala gadashada ciyaartoyda maxaa iyaduna si kooban hadaad noo doodo suuqi kala gadashada sida aan la socono January ayuu furmaya laakiin ma u maleynaayo kooxan waaweyn oo kor jira inay dad u baahan Liverpool dad uma baahan City Fernandinho Busquets ay qof u rabtay laakiin Arsenal ka waran wax ma soo gadan doonaan kulli hadii fursad helaan difaac ay u baahan yihiin dad ay soo gadan laakiin suuqa waxa u maleysaa kooxaha dhacayo inay aad iyo aad wax u gadan doonaan suuqana ay dad badan ku qasbi doonto inay wax soo gataan marka in hadii markaan dib ugu laabano waxa tiri way adag tahay ciyaar soo socotaana lagu kala ogaan doonaa Man City iyo Liverpool sanadkan ma isleeyahay Anfield bay geyn doontaa koobka waa igyaab say ku socoto waa la soconaa ciyaartii ugu dambeysay Everton saacadii afka lagu hay ayay goolka ay ka dhalisay midda kale waxay gurigooda ku soo tuntay Tottenham ayay gurigooda uga soo adkaatay marka waxa u jeedaa sida ay ku socota ayaa u jeedaa in Liverpool la celi karin ay xoolo ku socoto hore iyo gadaalna ay ka fiican tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deysane oo arrimahaasi ciyaaraha toddobaadkan ka faaloonayay daawadayaal waxaan idin leeyahay mar kale sanad wanaagsan sanadka 2019 oo saacadoon iminka nooga harsan yahay inkastoo meelo badan oo dunida ah mar horeba sanadkii la galay sida Australia oo kale inta ayaan ku soo gabagabeynaa guud ahaan barnaamijkeena caawa oo ahaa kii ugu dambeeyay sanadkan 2018 intaanu mar kale dib u kulmayno dhamaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa aniga iyo asxaabtaba sidaa iyo habeen wanaagsan